weerarkii Israa'iil ay ka geysatay caasimadda Dooxa ee dalka Qatar waxay soo afmeertay kalsoonidii wadamada Khaliijku ay ku qabeen ilaalada Mareykanka. Sidaasi waxaa ciwaan looga dhigay maqaal dheer oo lagu daabacay wargeyska caanka ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian. Maalinimadii Khamiista ahayd, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa hogaamiyay janaasa lagu qabtay madaxtooyada qaranka, taas oo luxudka lagu dhigay 6 sarkaal oo mid kamid ah lagu dahaaray meydkiisa calanka dalka Qatar, halka 5 kalena naxashkooda lagu dahaaray calanka dalka Falastiin. Duqeyntii maalinimadii Talaadada ahayd ay Israa'iil ka geysatay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, halkaas ay ku bartilmaameedsatay mas'uuliyiinta sare ee madaxda Xamaas, taasoo sidoo kale ay ku dishay mid kamid ah muwaadiniinta dalka Qatar, ayaa noqotay dhacdo aan la filaynin oo soo food saartay madaxda wadamada Khaliijka. Weerarka ayaa hoos u dhigay filashadii ay qabeen wadamada gobolku ee ahaa in ay muhiim u yihiin Mareykanka isla markaasna uu difaaci doono, arrintaas oo si weyn loogu saleeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Qatar, isla markaasna wadamo badan oo gobolku ay la dhaceen. Qatar ayaa ahayd xulafo muhiim ah oo Mareykanku leeyahay, iyada oo fududeysay wadahadallada dhexmara Israa'iiliyiinta iyo Xamaas, iyadoo sidoo kale la xasuustay inay fududeysay wadahadalladii dhexmaray Mareykanka iyo Taliban intii uu socday dagaalkii waddanka Afghanistan. Qatar ayaa sidoo kale Mareykanka siisay saldhigga ciidamada cirka ee Al Uxud, kaas oo ah saldhigga militari ee ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe. Iskaashigan oo 30 jirsaday ayuu Mareykanku diyaaradaha dagaalka iyo hubka casriga ah ku siin jiray wadamada Khaliijka, asagoo sidoo kale taageero saaxiibtinimo heer caalami ah la garab taagnaa. Arrintan ayaa ka caawisay wadamada Khaliijka in ay ka badbaadaan dhacdooyinka amni darro ee galaaftay wadamo badan oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe. Balse wax walba waxay isbedeleen markuu Mareykanku ku guuldareystay inuu ka hortago duqeynta Israa'iil ay ku beegsatay waddanka Qatar, inkasta oo la xasuusto in uu Mareykanku yahay saaxiibka ugu dhow ee Israa'iiliyiinta. Madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa sheegay in uu u digay Qatar ka hor weerarka, balse amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim ayaa beeniyay asagoo sheegay in la soo wargeliyay kadib markii la duqeeyay. Waraysi uu Sheikh Tamim uu siiyay warbaahinta laga leeyahay Mareykanka ee CNN ayuu si weyn ugu dhaleeceeyay weerarka Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa, asaga oo sidoo kale sheegay inuusan garanayn erey uu ku cabiro cadhada uu ka qaaday falkaasi. Inkastoo madaxweyne Trump xiriirada caalamiga uu ka jecel yahay xiriirada ganacsiga, haddana diblomaasiyiinta ayaa sheegay in weerarkan uu si weyn u dhaawacay kalsoonidii dhex taallay wadamada gobolka iyo Mareykanka, taasoo soo taxnayd ilaa 1930. Fariinta laga qaatay duqeynta Qatar lala beegsaday ayaa ah Mareykanka oo ah taageeraha ugu weyn ee Israa'iiliyiinta, isla markaasna kumanaan bilyan oo dollar iyo ku basiya sanad walba in uusan rabin inuu Israa'iil qabto, taas beddelkeedana uu ku garab taagan yahay wax walba. Maadaama uu shalay ogolaaday in la beegsado Iiraan, maantana uu ogolaaday in la beegsado Qatar. Arrintani waxay muujinaysaa in wadamada gobolku ay ka walaacsan yihiin Mareykanka inuusan dan ka lahayn madaxbannaanidooda iyo amnigooda qaranka. Jawaabta wadamada Khaliijku ay ka bixiyeen weerarka lagu bartilmaameedsaday waddanka Qatar ma ahayn mid soo dahda, iyada oo dhammaan wadamada Khaliijku ay u arkeen Israa'iil inay tahay halis ku fogan. Xaalad diblomaasiyadeed ayaa sidoo kale ka qaraxday wadamada Khaliijka, iyadoo hormuud u yihiin waddanka Imaaraadku. Waxaa sidoo kale gaadhay magaalada Dooxa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, boqorka Jordan, iyadoo la rajeynaya halkaasi inuu isbuuca soo aadan uu ka qabsoomo shirweynaha Carabta oo degdeg ah oo ay ka yeelanayaan xaaladda duqeynta ee lala beegsaday waddanka Qatar. Isirsifaynta ay Israa'iiliyiintu ka wadaan magaalada Gaza iyo ololaha militari ee Yuhuuddu ay ku beegsanayso gobolka ayaa ka dhigay wadamada Khaliijka kuwo isku soo dhawaada, ayagoo doonaya markan inay hoos u dhigaan xiriirka ay la leeyihiin waddanka Mareykanka. Sidoo kale, rajada laga qabo in wadamo cusub oo Carab ay aqoonsadaan heshiiskii Abraham Accord oo uu Mareykanku dhexdhexaadiyay, taasoo la doonayay wadamada Carabtu inay Israa'iil ugu aqoonsadaan waddan madax bannaan, ayaa markan wajahaya mid kamid ah khatarihii abid ugu weynaa. Imaaraadka Carabta oo ah dalka Carabeed ee aad isugu dhawaayeen Israa'iil ayaa hadda la soo warinayaa in ay arrintaasi aad uga cadhoodeen, isla markaasna ay doonayaan inay gebi ahaanba xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil ay meesha ka saaraan. Israa'iil ayaa horey u weerartay wadamada Iiraan, Ciraaq, Suuriya, Lubnaan, Yaman, iyadoo haddana bartilmaameedsatay waddanka Qatar.